iyadoo maalinnimadii shalay beeldaajiye xandulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Burco isla markaasina mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Burco uu ku eedeeyay in ay boobeen isla markaasina ay dhulbab ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah dawladda hoose ee magaalada Burco iyo goobo ay dan guud ah oo bulshada gobolka Togdheer lahayd haddaba xogaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo roortii hore saaka xafiiskiisa dawladda hoose kula hadlay qaybo ka mid ah warbaahinta ayaa waxa kama jiraan ku tilmaamay eedeymahaasi oo maalinnimadii shalay uu soo jeediyay beeldaajiye xandulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer waxaana uu xogyuhu sheegay haddii uu cadeymo ku cadeynayo inay mas'uuliyiintu ay nusadeen gooban dan guud ah inay maxkamadda la tiigsan doonaan waa sida uu hadalkiisa u dhigay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisii halwaayaa buuri lawayaabki halwaayaabo dundumada aragtay aboor ba dhisay buuri lawayaabki wuxuu ku dhisay xanuuftiisa halwaayaabo waxa tiraadeen xandulle oo waxgaradka magaalada anigu ma arkin inuu yahay waxgaradka magaalada duu waxgarad magaalada yahay nin weyn oo qowl ka dhacay waa geed qolfi ka dhacday baa wax doon iska kama hadleen wax jiro xaqiiqo ah ku hadlaa marka la su'aashan ay weydiinaysan soo noqday ay leedihiin wuxuu iibiyay waxa la iibiyay xaruntii dawladda hoose ee Burco arrinkaas isaga waxaanu ka taaganay maxkamad ha soo cadeeyo halku aanu ku iibinay dawladda waa taa aanu ka dhaxadinaa loogu timaadeen iyo ganacsatada aanu ka iibinay ee uu nagu cambaaraynaya aniga iyo maayarka waxaanu leenahay xaqiiqadeeda laga rabaa lagaana hari maayo dawladda hoose hantideeda maguurtada halkan ku xaraashnay halkan ku iibinay cadeynteeda laga rabaa marka anigu waxaan leeyahay waxa uu sheegay hadal ku rafan maayee cadeynteeda laga rabaa inuu soo cadeeyo ganacsatadanu ka iibinay iyo waxaanu ka iibinay inuu soo cadeeyo laga rabaa halkan waxa ka muuqda sawirka uu ka soo daayay waa hoolkii weynaa dawladda hoose socday dhismihiisa socday oo waxyaabaha carabka ku dhiftay waa leebi kaamboodka gudihiisa la soo sawiray waxyaabaha carabka ku dhiftay waa leebi cadeyntii baa la rabaa anigu dooni maayay in ka sii hordhacay horta ilaa cadeyntiina ka laga helo sagar waxa laalay wax nooca oo ku hadleen oo nasiib daro iyo sharaf dhac anigu waxaan se u arkaa dagaal kale inay wixiisu tahay oo ka kacay dhul uu dawladda hoose ka doonayo 6 balooda ay dagaalkiisu ku saabsay waxa ka wacnayd isagoo iska bareera oo ilaahada hanti noocaasaan dawlad ama ha nagu yeesho ama uu nagu yeelanay 6 baloodo xiriidhigu ninkan waxa ku wanaagsanay inuu iska bareero ilaahdo dhulkaasaan dawladda hoose ka doonayo laga sii waay dhulku doonayana waa dhul sharci darro ah meel wax nagaga yeeshana garan mayno xaqiiqada marka laga hadlayo maxkamad bay arrintiisu gashay wuu naga soo dacweeyay xeer ilaaliyaha gobolka iyo faylkiisii waxba uu nagu waayay waxaanu u waashay 6 baloodo xeeradhiig ku yaala taa markuu waxba ka soo waayay ee maxkamadii waxba uu qirweeyay ee dacwadda lagu oogay socon weeyday ee wixiisa hal bacaad lagu lisay noqotay inuu yiraahdo xaruntii dawladda hoose ayaa leebiyo maayirkii xogayaa iibiyay waa dee iska uu aqoontiisa xasan nasiib darro ah waxa nasiib darro ah waxa ku tilmaamtay waxgaradka magaalada marda kelmadda xaal hal laga siiyo dadka reer Burco iyo waxgaradka reer Burco taayim ka jawaab maayo cadeynteeda anaga horta cadeynta maxkamadda looga taala markuu soo cadeyn waayo laguuna eedeeyo wuxuu nagu eedeeyay mas'uuliyiin wax lunsado musuq maasaqe markuu soo cadeyn waayo maxkamadda naga dhaxayso wadanka garsoor bulay cadaalad naga dhaxayso Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Amar telefishinka Somali News magaalada Burco